marka kubadda cagta la joogo waxaa inta badan la isweydiiyaa dhacdooyinka kala duwan ee ka dhaca xeyndaabka cagaaran iyo weliba kashifaadda siraha ku doogan ficilada xidigaha kubadda cagta ciyaaraha ay sameeyaan. muxuu Jorginho rigoorada ugu tuuraa qaab ka duwan xidigaha kale ee ciyaaraha horyaalada kala duwan ee caalamka? kubadiisa sixran ee aan la qaban karin iyadoo sahlan muxuu kaga jawaabay markii la weydiiyay sirta ku doogan habkiisa la yaabka leh ee tuurista rigoorooyinka? inta jeer uu dhaliyay rigooro cidda ugu dambeyn ka shiftay iyo siro kale ayaan wadajir uga ogaan doonaa muuqaalkan xiisaha leh. Jorginho waa xidig caan ku ah samaynta kubadaha gaagaaban iyo weliba baasas aad u fara badan in ka badan xidigaha garoonka kula jira. waa wiil kubad wanaagsan oo ka soo jeeda waddanka Talyaaniga ka oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea taa uu ka doortay ku biiristeeda kooxda kubadda cagta Manchester City oo xiiso badan u muujisay ka hor inta uusan imaanin naadiga Chelsea. waxa uu hadda muhiim u yahay kooxda uu maamulo Frank Lampard waxaana uu qaatay neenaasta mudanihii baasaska ama kii kalsoonida badnaa. haddaba waxaynu si toos u eegi doonaa sirta ku doogan kubadaha goolkulaadyada ah taa oo u tuuro inta badan si qosol leh amaba la yaab leh oo ku adkaanaysa shabaq-ilaaliyayaasha inay rigooradaasi badbaadiyaan. intaanan guda gelin haddii channelkeena Xaviino Tube uu ku cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir like-na saar muuqaalkan aad iyo aad u mahadsan tahay. taageerayaasha kubadda cagta ayaa aad wax isaga weydiiyay sababta ka dambeysa qaabka uu Jorginho rigoorada u tuuro. wiilka reer Talyaani oo saxaafadda la hadlaya ayaa yiri aniga aad ayaan ugu faraxsanahay qaabka aan rigoorada u tuuro mana idiin sheegayo sirta ku doogan taa oo fasirkeedu ahaa inuusan rabin in la ogaado waxa ka dambeeya iyo weliba sirta ku doogan hab tuuristiisa rigoorada. balse waxaa jirta sir si hoose loo helay oo ah waxa ay isaga kaga dhigan tahay iyo waxa uu ka faa'iido u tuurista kubadda qaabkan bootinta iyo tuurista kubadda isxiga. aragti ahaan Jorginho waxa uu eegaa goolhayaha halka uu dhaqaaqayo waxaana inta kadib uu qaataa go'aanka saxda ah mana ka leexiyay indhihiisa goolhayaha taasi oo ah saldhigga xeeladiisa casriga ah. waxaana sirta ugu weyn ay tahay bootinta yar ka hor inta uusan kubadda lugta ku taaban isla markaana uusan shabaqa taabsiinin ciyaaryahankan reer Talyaani. xeelada rigoora tuurista waxaa lagu tilmaami karaa mid qosol leh oo cajiib ah waxaana ku jira kor u boodista waqti yar oo uu wax walba ku go'aamin karo qaab aan ka baxsanayn sharciga weliba aysan dood badan ka dhalanaynin. inta badan Jorginho waxa uu goolkulaadka u bedelaa gool isagoo dhinacyada tooganaya goolhayaashuna badi ma badbaadiyaan bal waxa uu goolhayaashaba ka dhigaa kuwa jiifa jihada kale. waxaa jira laacibiin kale oo habab qaas u tuura rigoorada sida CR7 Sergio Ramos Neymar Jr iyo weliba laacibiin kale. Jorginho waxa uu dhaliyay 17 rigooro kadib 18 isku day oo rigooro ah oo uu sameeyay xirfadiisa. Jorginho waa rigooro tuuraha koobaad ee kooxda Chelsea iyo xulka qaranka dalka Talyaaniga. haddaba daawade adigu miyaad aaminsan tahay in Jorginho uu yahay rigooro tuuraha koobaad ee ugu wanaagsan guud ahaan qaaradda Yurub? magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Xaviino aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.